iskumaan ma nabad baa? haa waa nabad. magaciinna maqal ee masiirkiinnu waa maxay? Soomaalo milgaheediyo masiirkeedii garato mugdigii ka hayaanto shaydaan maryooliyo munaafiqii iska naadho mustaqiinka ku taagan bay matashaa iskumaan. mabda lagu heshiiyo qarannimo mug weyn loo matalaya shacabka milga iyo sharaf badan oo madaxda sare iyo maqaawiirta dhaqankiyo macal culimadeena leh oo ku midaysan maandeeq oo madda qura ku joogtay matashaa iskumaan. meeqaanka gobolada meel kastoo dalkeenna ah mabaadiida dawliga federaalku maamulo mawjadaha shacabka ah mawla uu ku beero miyi iyo magaalada maantadan dhex joogay muujintood u doodaa oy matashaa iskumaan. waxaa mabda'eennu yahay oo aan iskumaan ku nahay inaan musuqmaasuq iyo mamnuucnaa midabta koor qabyaaladda meel dhignee shacab iyo madaxdeenna qaran midnimo loo wada guntado. keena maalqabeenka iyo midkay midigtu maran tahay ee maalka faraha ugu jirin oo maatida iyo makasta leh inaan laga mashquulino dawladdeena mudan iyo moogaan dadweynuhu yay suugaan murtile iyo maase ku gudbisaayo matashaa iskumaan. waryaa warrabo warkood biin war waa badan yahay xageen kaaga warranaa maxaanse kaaga warranaa hawlihii dalkee socday saaka xagee bay wax marahayaan? waxaa wax marayaan caqabadihii masiiriga ahaa ee dalka haystay caqabadii ugu darnayd dadaal dheer iyo juhdi kadib dawladdu waxay qaaday caqabadii ugu darnayd oo amniga iyo nolosha iyo horumarka iyo israaca iyo siyaasadda iyo wadajirka Soomaaliya ahaa waxayna noqotay arintaasu haddii aan caddeeyo kordhinta mushaarka ciidamada qalabka sida. haa runtaa waay xataa $30 oo hunguri ahna waa la siiyey alloora boqolkii boqolaa loo saaray 200 oo xiran alla boqolaa barfaad lagu qabiy lama hadii laga dhigay alxamdulillah ardadkaana dadadaal ayaa daa'ignoo keenay alxamdulillah rabbil caalamiin boqolkii haddana biriga boqol ma la saarinoo mugo barwaaqa hadday koow tahay mugo askar la'aanteedana ummadan wax ma anfacay alxamdulillah maasha Allah war heedhaha waxaan oo sacab iyo sawaxan ah ma waxaad u tumaysiin $100 oo ciidan loogu daray? haa ayadaan u tumaynaa haa walaalle. war niman yahow ciidanku $100 ka badan bay xaq u leeyihiin dawladdu waa dadaashay laakiin waxaan leenahay dawladda dadaalkooda inay sii laabaan oo 6 bilood iyo halkii sanaba ay mushaar kordhinta halkaas ay u bilaabatay ha noqoto. war aniga waaba yaabanahay dadkiinan meesha soo farfadhiyo iska sacbinaay aawa idinka kaalintiinni haddaa shacabka Soomaaliyeed nahay annaka kaalinteeni ma u jeedee aaway dawladdu waaba dadaalowsaaye annaka haddaan shacabkii Soomaaliyeed nahay qaybihiisa kala duwan war ganacsatadeena aaway war qurba joogteena aaway war siyaasiyiinteena aaway dadkeena aqoon-yahanada ahayo wax bartay war kaalinteena way banaan tahay niman yahow aawa annaka kaalintaan lahayn aawa maamooyinkii hooyooyinkii dalkan usoo wax ka soo dhisay kaalinteena waa banaan tahay annaga dal aan ciidan lahayn oo dadkiisa u kicinina adduunyada lama tartami karo waxa waay annaka inaan dadkeena annagoo dalkeena iyo ciidankeena annagoo isku duuban ina u wada istaagno taasaana looga baahan yahay askari 100 loogu daray ina u sacbina ma ahane sacabkan sacabka weyna ciidanka naga rabaan saxankan saxanka weyna ina wax ugu ridna waaye marka waxaan idin leeyahay idinka kaalintiina maqan ciidanka oo dhibaatada heesato banaanka taagan qorraxda dushooda ku dhamaanayso roobka kaneecada dabeesha u dheer tahay qaraxa isku dhigaaya furimaha hore taagan oo cadowga hor taagan dhiigooda aan halkan ku farfadhino hooskooda harsanayno war ciidanka waa inaan annagu u kacno dal aan dadkiisu dhisin ma dhismo annakaana laga rabaa inaan dalkeena dhisno ciidankeena dhisno daba soconno adduunyada gaarsiino mushaarkiisana la baxno annakaana laga rabaa ee taama isla qaadanay war wax ma ogtid war hal aadi shacbiska diidaysa anka eberan bakanimid eber boqolkaab wax noo eeba boqolkaan lagu dari boqolaan haysanaya boqol noo lagu dari war kuwaan waaba noo dadaaleen cimrigooda Allah dheereey kursigooda Allah dheereey hooshooda Allah dheereey war kuwaan loogu noqono war kale waaba anfacayaan hadda lama goob joogdo afarna bariyaal taga insha Allah waryaana iskumaan war farxad laha idin sida oo yahay dawladda Djibouti inay na garab taagan tahay dhibkiina u dhacay fatahaadii iyo khasaarihii uu noo geystay inay naga garab istaagtay oo ayna siisay deeq lacageed oo aad u badan iyo gargaar kale walina ay soo wado ilaa awalba walaalaheen bay ahaan wayna garab istaagi jireen haddana wayna garab taagan yihiin ma ogtihiin Djibouti kaliya ma ahan
dadka doorka cad ka ciyaaray maanta fatahaadda ayaguna waxa weeyaan lambarka labaad ama kow ka ah shacabka Puntland oo haddeer tiimkii loo soo qoray ay weli dabiiba hayaan waxa weeyaan dadkii dhibanayaasha ay ku dhex jiraan mar dawladda Djibouti waa dad walaalaheena oo weligood ba diyaar inoo ahaa oo ina garab taagnaa oo garanay Puntlandna garanay laakiin Soomaali badan baan tabayaani qurba joogti aaway Jubbaland aaway Galmudug aaway Koonfur Galbeed aaway Hirshabeelle aaway dadkii aaway Somaliland meeday iyo Somaliland wariyaa maanta oo dhan meelaan jirin bay iigu meeraysanahay war wiilka jooga Gaarisiya kan Djibouti jooga iyo midka jigjiga jira iyo kan xamar jooga kulli waa jirkayga oo waa Soomaaliya aniga ciirtaydu waxay jug tiraahdaa nimankii cadcaddaa iyo gargaarkii caawimadii shisheeyaha ee aan ku darari jiray meeday shisheeyaha la maanan jiray meeday Soomaali isma amaanto ana ogo muruqooda alla waa ka qariyay Hirshabeelle isku soo daray mogtahay Hirshabeelle iyada naftirkeeda wabiga ku soo harqamay bee brother Galmudug ayadaaba kaalay daadaha dibadda soo bara ku jirta saas oo ay tahay damiirkeedu waa kacsan yahay guddi bay saarto isqaan bay ku jirtaa ayaxna waaba ku soo dagay oo asna masiibooyinka kamid ah caalamiga Djibouti waa la hubaayo hiil walaal ku xasuuso haday soo gurmadeen billaahna waa hilibkeeni hooyadii federaalkeed hilmaamin mayno hiil walaal horiyaa dib howle ahay qaabteen hilmaamin mayno hiil walaal ya horiyaa dib howle ahay qaabteen haba ahele waya bahale isku maaray wada furan ma loo helay bulshadii waqalka naafeeyay si wax loogu geey kara dhammaan inaan isweydiino wax dheef badan le suugu dara waajib nagu waayay walaalka haddoo ka warqabo kuna walwaaleenin waqti adagna lagu jira qalbiga waa walwalayahay waa wareera duuya la yiri waadi roobsaday wibiso fatay beel xumay kugu wareemaane wasiir la wakiishaya walaaliska ashaaqa waadan wasiir la wakiishaya walaaliska ashaaqa waadan webiga Shabeelle biyoogi ka fataheen magaalada Beledweyne intii dhimatay Ilaahay aan naxariisada shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda safayleen ka gurmadeen insha Allah waanu wada dadaalkiin kama santiin Ilaahay hasiin ka ajarsiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeedna Saadi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ilaahay khayr hasiya iyo dawlad wasiirada iyo xildhibaanada Saadangna eedan kama hasiin guddan lansaari lahan waana indhay safayla walan ka gobadi dhamaan shacabka Soomaaliyeed way ku codsadaan inay dadaalkaas meel ku faylan inay sii wadaan jaaliyadii dibadda u xilqabay dalkooda qabka diira lahaaye damqan jiray maxaa helay war dollar aad isu geyseen iyo doonyo soo rara doonyo hooyo dibadda taaliyo umula dardanaye dad yahow Soomaaliyeed haddaan isku duubanahay tan guud hadafkeenu yahay madaxdu noo daaca tahay diiniga isku maan ka nahay dambiile xabsiga la dhigo dayaxa waan tagi karnaaye bulshooy ku dadaal midnimo waryaara isku maan war maxaad ka haysaan diyaasbaradii iyo qurba joogtii waddanka dadkiisa ka mid ahaa inta Soomaalida dalka joogta ay dhan tahay ama ay isugu jirto bay isugu jiraane dhibaatada iyo masiibada dhacday ee fatahaadda iyo ayaxa la sheegayo kaalin intee leeg bay ka geysteen doorkoodiisa ma muuqda maxayse in la tahay talo qurba joogtu inay ku maqan tahay saaxiib warba ma haysid qurba joogu waa kuwii u taagnaa weligood wax kasta oo dalkan ka dhaco afuri walaalka qurba joog baa alifay barnaamijkii taakule ciidanka halabuurkeeda dhaqaale aruurinteeda gurmadkeeda intaba waxaa iska leh qurba joog waxaan leeyahay qurba joogta Djibouti ka soo hormaray oo soo socdaane caanahooda Allah naga daadin oh my god war qurba joog la'aanteed qarankani ma taagmeen qabri bay u aadeen balse ay u quudshaan qarni haafki naga tagay qaran jabay dadkiisii qurba joogta way soo socdaan waa diyaar ayaga qayla dhaantara keenay qayla dhaantoo dhan ba qurba joogta soo tabisay waana diyaar haaraan iyo kala fogaansho xumaan loo hagar laado taariikh waa laga hayaaye hanqaaran wixii la gaaray waxaan hali soo jibaxnay wixii haadaama jahan Ilaahay nooga hiilsay halyaaya wixii la aasay wixii hanti laga qasaaray hore beentaan u dayno hadeertaan aynu joogno harub caanaha daatahan baa laga cimiliyay hadii aad heli karaysa wixii aan horey u hadnay dib yeedaan ugu habsan hadii dhidkaagu horo shaqada waa laga hodmaayay inta reebel ku haynay hadii qayrkeen hayaamay dayahoy laga samaystay igsa heerka la gaaray dadaala waa helay